gurigeyga intaa tagaa xataa waa ka gaari waaye. waxaa la yaabanahay waxa Nairobi ka socda hadeertaan. talo intay ku dambeyn doonaan dhacdooyinkan hadda ayaamahan, intay ku dambeyn doonaan, how long ay socon doontaa. horena u jiri jirtay dhacdooyin oo Soomaalida lagu bartilmaameedsanayo, laakiin Soomaalida ayagaa ka seexatay. bahash markay koow kugu bilaabato haddaadan iska qabanin dee markay tagto waxba kama qaban kartid, ma fahantay. mahmaayaha ku fiicnay laakiin maaha madaxii ku soo dhacday, laakiin waxaa waaye waa nagu tagtay hadda bahashaan. dhacdooyin maalinba maalinka dambe ee naxdin ah Soomaali lagu bartilmaameedsanayo. annagana qalbi adeeg dhulka islaameed waaba sii dhidhisanoonaa, maalinba guryaha taaganoonaa. qolooyinkan maaragtay timaha jilacsanaa maanta waxay magaaladan ku qabaan wixii magaciisa iloobay dawaaliimya meel kasta ayagaa lugeynayaan. anyway asxaabey, waxa Nairobi ka dhacay wax loo dul qaadan kara maaha. maalin gabar la jarjaro, maalin gabar la ceejiyo, dad la afduubtay, dad la dilay, wax ka qaban karna haba yaraatee malaha. dadkan qamarjiyaal waaye, ama dhimo ama taajir way usoo bareeraba, ama xabsi gal ama dhimo ama maanta faqriga ka baxa. Soomaaligan wixiisa qaado oo faqriga uga bax. saddexdaas qodob uu ku socday qofka, ma ogtahay. hadda ninkii gabdhaha gowracay ee jarjaray ilaa hadda meel laguma sheega la sheego, kiiskiisa lama oga. Soomaalida ka kala seexatay, ehelkii unbaa iska daba ordaayo. ilaahay ayagana garabkooda ha noqdo. laakiin waa arrin halisteeda badan tahay. fiidiyogan la qaybinayana ma fiicnabo, oo hadhow waxaa dhici karto inay qish ka helaanba Kenyaanka ay isdhahaan okay, sida hore u sheegaba, ama faqriga Soomaali xoolahooda uga bax, ama ku dhimo ama xabsi ku gal. inay ku dhiiradaan ay isdhahaan banaagahan maaragtay, because waxaa joogaan single mother badanaa Nairobi joogaan oo nimanka dibadaha ka jiraan. naagahan iyo ilmahan xoolahooda soo qaata, ama ha idin dilaan ama ninka dila. ilaahay hana amaansado. meel kastaa joogno aad iyo aad ummadda u dayacanaanahay. waxaa la yaabaa mustaqbalka awlaadeena intuu noqon doonaa. annaga markaa shalay ciyaalka ahayn oo ilmaha yaryarka ahayn oo Soomaaliya oo burburtay aa dhex joognay oo ku cayaareen ilmaha ahayn, waalidkeena mustaqbalkeena iskama wareysanin. isma dheheenin ilmahan talo xaggee ku dambeyn doonaan, ilmahay dhalayaan xaggee ku dambeyn doonaan. laysma dhihin, cidna iska keen wareysata ma leh. keliya qof walba saacadaas asii ku badbaadaa ee ka fikiraya. hadda annaga marka waa weynaana, hadda annagiyaa dadkii dalka dad u wixii annaga naga horeeya waa duqoobayaal samaaha. annaga ilmo dhaldhalnay. annaga marka ilmahan dhaldhalnay intee mustaqbal u ahaa ka wadaa, maxaa u xal ah. yes straight ilmahaasi dhali doonaan maxaa u dana. subxaanallah. ma guryahaas oo Nairobi oo saasna lagugu ceejinooyo hadeertaan, oo marna qaybna la jarjaraya aan ilmaheen ay ku ilmo dhali doonaan. ma Yurubtaana hadda aan joognaa maaragtay xaaladeed iska sii xumaanaysa. qoomuluudku biyo shubanaysa ilmaheena ku ilmo dhali doonaan, xaggee aadi doonaan waay. tilaabada ugu yar ee qof kasta uu qaadi karo hadda hooyo aababa, in ilmaha hadda la dhalaayo ama ilmaha hadda yaryar ee gacanta lagu hayo lagu barbaariyo dhaqan ka duwan kii 30 sano u dambeeyay jiray oo qabiilku ugu horeeyo. inuusan cunugaaga qabiil baran, inuu cunugaaga arko effectiga iyo dhibka qaadka leeyahay, inuu cunugaaga arko dhibka qolooyinkan dadka duufsado ay leeyihiin. ina cunugaaga gurigaaga dhexdiisa adaa ka hooyo adaa ka aabo samaha. مثلا هاد gabadha 25 jirta ee hooyada ama 30 jirta ee hooyada ay 4 cunug 5 cunug haysato, Soomaalida iska dhadhalnaayo. in ilmahaas ay hayso ay ku barbaarso dhaqan ka duwan dhaqanka iyada ku soo barbaartay. kaska iyada ku soo barbaartay qasaarihiisa way aragtay samaha. hooyo kasto iyo aaba kasto ee reer lamaanta duu kabaa u gashto ilmaheyga waa inay ka badbaadaan foolxumada aan ku soo koray, ilmahoodana ay ka sii badbaadiyaan ayagana.